inkastoo ay socdaan howlgallo ay ciidamada amniga gobolka Nugaal ka wadaan magaalada Garowe si looga hortago falalka amni darrada ayaa bulshada rayidka ah waxay muujinayaan walaac iyo waliba weerar la sheegay in ay shabaab qorsheynayaan sida ay dhawaan xogtooda ku baahiyeen taliska qaybta booliiska gobolka Nugaal oo kaashanaya laamaha sirdoonka Puntland Suldaan Cabdiqani Qorne oo ka tirsan dalada bulshada rayidka oo shalay hadal kooban ka jeediyay munaasabadii daafurka manhajka waxbarashada Puntland oo uu goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Crash ayaa sidan uga hadlay xaaladda amni darro ee deegaanada Puntland dilalkii dhacay iyo waliba walaaca ay bulshadu qabto aqoontii baa duulaan lagu yahay culimadii baa la leynaya dawladii iyo dadkii saraakiisha ee khibradda yeeshay baa la leynaya ganacsatadii baa la leynaya waa la baadaya يعني waxa soo baxay dad aan waxba ka naxaynin waxay doonayaan xitaa aan sharixi kareynin markaas haddana la kala dhuumanayaayo qof walba wuxuu rabaa inuu qof kale ka hadlo oo dawladdu waxay leedahay culimada ka hadlaan oo culimadu waxay leeyihiin dawladdu wax ka qabtaan iyaga maxaa ku dhaxoolay ummadda gacanta ku hayay oo ganacsatadii waxay leeyihiin war aniga ganacsigayga balaha i gelin buu ku leeyahay markaas dadkii xabad loo dhamaysanaya war arrinta ina bixin mayso hal qolana xilkeeda ma aha waa ina wada saaran yahay Soomaali ma soo celin karto 50 sano oo soo socota Sheekh Cabdinaasir Kidaraato hortooda lagu dilay dhanka kale Suldaan Qorane waxa uu laamaha amniga ka codsaday in ay dadweynaha u soo bandhigaan xogta ay hayaan ee ku aadan weerarada ay qorsheynayaan al-shabaab war amniga hal la sugo waxa la leeyahay Garowe la jooga waa lagu jiraa magaalada baabuur qaraxa islaam bayl wadata magaciisi weeye waradar waxaan cabsida oo noolaanaya waxa ku jiro la sheegayo ma inta magaalada guriguro loo galo la soo bixiyo ma iskala shaqeeyo si loo leedo hurda caafimaad qabta dadka noocaas wuxuu weeye mujrimiin weeye ilaahay bay ka furteen xaq waxay bulshadu u leedahay in xabsi inta la geliyo loo sameeyo dhaqan celin wixii dhaqan cilmi kara kii dambi galayna maxkamad la soo saaro laakiin ku kala dhuumashada marxaladda tan iyo in la iska dhigo inaysan bala jirin ina bixin mayso Soomaalidu waxay tiraahdaa war haday bala dhacdo aysan bala dhiciso bala ma dhicin bala nagu dhex jirtay baladan qaban insha Allah ma santii jazakallahu maalmo ka hor ay ahayd markii taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal gaashaale sare Xuseen Cali Maxamuud oo ka hadlayay kulan amniga looga hadlayo oo ka dhacay xarunta gobolka kaas oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan saraakiisha amniga iyo waliba maamulka gobolka kan degmada waxa uu ka sheegay in ciidamada ay heleen xog ku saabsan weeraro ay geystaan al-shabaab taasna loo baahan yahay in shacabka iyo booliiska la iska kaashado sidii falalkaasi amni darro looga hortagi lahaa qaraxiyo ismiidaabin iyo wax la mid ah falalka guracan taalaaligeed waxa muhiim ah oo laga maarmaan ah in bulshadu ogaato cadawgu dhagarta uu leeyahay waxa la socotaan cadawgu inuu isku dayayo inuu qalqal geliyo nabadgeliyada nafta bini'aadanka hantida dadweynaha isu socodka iyo isdhexmarka bulshada taalaaligeed waxaan u baahanahay inay gacmaha wada qabsano meel uga soo wada jeensano iska ilaalino cadawga xogta la helayo in bulshada la socoto weeye tan iyo markii doorashada golaha shacabka ay bilaabatay ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay geysanayaan waxaana ugu dambeeyay weerarkii magaalada Boosaaso oo lagu beegsaday wafdigii madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani ee qarax ahaa taas oo ay ku dhinteen 2 askari halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen muddadaasi wixii ka dambeeyay ciidamada amniga ee Puntland waxay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxaana heegan la geliyay ciidamada amniga si looga hortago falalkaasi guracan ee laga cabsi qabo in shabaab ay geystaan inta ay doorashada socoto Xasan Heykal Universal TV Garowe